Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Wehel Cusub Media. Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo ka soconaya dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wararka ka imaanaya magaalada Dawacaley ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka soconayo haatan dagaal culus oo saakay aroornimadii hore ka qarxay. Dagaalka ayaa ah mid u dhaxeeya maleeshiyaad hubeysan iyo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dagaalkan oo bilowday 6dii subaxnimo ee saaka ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Dawacaley iyo magaalooyin kale oo ku dhadhow, kuwaas oo dhammaantood hoostaga degmada Xarshin ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaa la soo warinayaa in dagaalka saakay dib uga qarxay deegaanka Dawacaley iyo deegaanada hoostaga inuu aad uga culus yahay dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaankaasi iyo nawaaxigiisa. Ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha dhabta ee ilaa hadda ka dhashay dagaalkan xooggan ee ka soconaya deegaanka Dawacaley iyo deegaanada ku teedsan, balse wararka ka imaanaya dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in khasaare badan loo geystay maleeshiyaadka la dagaalamaya ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana warbaahinta taageerta ama ku hadasha afka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay iyaduna soo bandhigtay gaadiid ay sheegayaan in laga qabsaday maleeshiyaadka la dagaalamaya ciidanka dowlad deegaanka. Hay'adaha amniga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shacabka ku dhaqan deegaanada uu haatan ka soconaya dagaalka saakay qarxay waxay u sheegeen in shacabka ay ku sugnaadaan guryahooda isla markaana aysan qarin amaba gambaad siinin maleeshiyaadka ku sugan magaalooyinka uu si toos ah uga soconaya dagaalka aroornimadii hore ee saakay bilowday. Wararku waxay intaasi ku darayaan in guud ahaanba xuduudaha ay wadaagaan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka Somaliland in la xiray, gaar ahaanna aagga uu ka socdo dagaalka saakay qarxay, taasi oo looga gol leeyahay in maleeshiyaadka la dagaalamaya ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inaysan helin gurmad gudaha u soo gala. Maleeshiyaadka la dagaalamaya ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka Somaliland. Dagaalka saakay dib uga qarxay deegaanka Dawacaley ee ilaa haatan ka socda aaggaasi ayaa imaanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay xaaladda deegaankaasi oo ahaa mid aad u degan, inkastoo ay labada dhinac is hor fadhiyeen dhowr jeer oo la isku dayay in la kala qaadana lagu guuldaraystay, taasoo ugu dambeyn keentay in saaka uu dib u qarxo dagaal aad u xooggan oo ka socdo Dawacaley iyo deegaano kale oo ku teedsan oo dhaca dhinaca xuduudda dowlad deegaanku uu la wadaago maamulka Somaliland. Haddaba daawadayaal, dagaaladan culus ee maanta ka soconaya gudaha dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee u dhaxeeya ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee loo yaqaan Liyu Booliska iyo kuwa maleeshiyaad ah ayaa faahfaahintooda waxaad kaga bogan doontaan wararka yaga xiga hadduu eebbaha awoodda leh qadaro. Isha ku hay boggayaga Wehel Cusub Media si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Haddii aad horay inoola joogtay daawada, sii share garay wararkeena. Haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir boggeena.